waxaalay ayaan riyooday waxaana la itusay dad la cadaabayo dadkii xalay aan arkay oo la cadaabayo waxa kamid ah Muuse Biixi iyo Xayn oo wato oo la cadaabayo oo isaaq ah aan ka aqoon subhanallah 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 wa markii iigu horreeyday oo ku riyoodo Muuse Biixi iyo koox isaaqa oo wato oo aan arko ayagoo cadaabti lagu guraa subhanallah qaabka marka dadkaas loo cadaabayo waxa kamid ah oo anigu aan arko aan ku riyoodo waxa kamid ah ayagoo mataqaana gaari banjara oo la riixayo meel holac lagu riixaa oo aadaara dadka aadaara korkiis meel holacana lagu sii riixaa lagu guraa qof ku dhagan yahay hayeen dadkaas marka waa kooxda Muuse Biixi iyo dadka oo wato oo isaaq ah waa may maqlaysaan u fiiriya Soomaaliya fiirsha u sheel gareeya muuqaalkan isaaqa dagaalka ku jira oo dhiigga muslimka banaystay inay saacad walba daadiyaan soo nasteexa ugu noqdo iyo naruuro guriyahana ugu galiya daaqadaha uga dhiiba meel walba ka galsh kiisuulu ku jira u galsh sheequ maanta wuxuu ka bilaabayaa barnaamij ku saabsan xalay baan riyooday waxaan ku riyooday iyadoo ummad badan la cadaabayo qaarna la jannaynayo janno ay iska haystaan marka si min Allah ayaa la ii tusay waa inay ogaadaan dadweynuhu dhagaha fura anigu xalay ayaan riyooday waxaana la itusay dad la cadaabayo iyo dad la jannaynayo labadaas ayaa la itusay himinkii xalaya bal ka warrama marka qof la tusay inta seexday ummad la cadaabayo iyo ummad la jannaynayo dadkii la tusay qofkii la tusay ka warrama waa arrin mucjisaad weyn waay oo aad u weyn marka waxaan inii sheegayaa subhanallah ilaahay baan ka magan galnaa cadaabta ilaahay baan ka magan galnaa waxaan kamid ah dadkaas xalay aan arkay dad maaragta si aad loo cadaabayo ilaahay cadaabtaada naga kori dadkii xalay aan arkay oo la cadaabayo waxa kamid ah Muuse Biixi iyo Xayn oo wato oo aan yaray kamid ah oo isaaq badan subhanallah ilaahan ka magan gal riyadaydii haddii aan kaga sheekeeyo xalay waqti adigu hurdo la galay ayaan waxaan tukaday salaad cisho oo 4 ragca aan tukaday markaan tukaday oo ducaystay aan seexda waqti aan hurdadii adiga waqti dheer aan ku jiro oo hurdadii aan waqti dheer galay baan waxaan arkay dad lama taqaana meel lagu shubayo holcaya meel holcayso cabaade dadkaas waa cabaadayaan qaylinayaan aad ay u cabaadayaan dadkaas waa qaylinayaan dabkuna holc waayo holc meeshaas dadkaas waa dad aan yarayn dadkaas dad aan yarayn waayo meesha lagu shubaa oo meel asaas loogu shubaa marka dadkaas waa holcay sameynayaan waa aadaarayaan meel luuqaha lagu wadaa holcna waa ka baxaa holcaas waa ileeyin waana hadda dad ma taqaana la isku duwayo kaxaysimaaho la kaxaynayo aan waxba diidi karin waay waxba ma diidi karaan dadku hal qof meel ma aadi karo hal qofna ma leexan karo cadaabtii ku daadanayaan ilaahan ka magan galna subhanallah ilaahan ka magan galna dadkii la cadaabayo waxaan ka aqoon Muuse Biixi iyo Xayn oo wataan ka aqoon oo isaaq Muuse Biixi iyo Xayn oo wato oo la cadaabayo oo isaaq ah aan ka aqoon subhanallah waa yaabay anigii waa markaasaan aan anigii inta maaragtay anigii gabigeyba si kala noqday oo bedelmay oo anigii dhama marshuucaygii bedelmay wixii aan ku jiray maxaan haddana kala arka dad kale waxaan arkay miro iska gurana
oo miro qurxiye ka batay yihiin oo qabow oo nibca ku dhex jira oo iska kifaaxa oo aysa ka qasnayn dadkaasna waan ark dadkaas meel waxay ay ka darsanayaan wax qabow ah oo qabow ah ay ka darsanayaan oo aan la yaabay markay soo darsanayaan oo cabayaan aan la yaabaydo waa meeshaas markaad fiirido waa macnaha ishu iyo raxmaadka iyo nibcada iyo waa adbogay dadkaas marka waxa kamid ahaa waxaan ka aqooday dadkaas nibcada iyo barwaaqada iyo qabowga ku dhex jira garaad jaamac iyo cayn kale oo dhulbahantaa aan ka aqooday waa dad ilaahay marka uu raalli ka yahay inay yihiin oo raalli ilaahay ka yahay aan u fahmin oo meeshaas nimcada iyo barwaaqadaas ilaahay siiyay oo raalliga ay ku qurqurinayaan dhinaca kale markii la eegana dadkaas Muuse Biixi oo wato oo la cadaabayo oo isaaq subhanallah ilaahan ka magan galnay dadkaas ayaa kamid ah dadka aan ku arkay meeshaas waxaad arkay dad calooshoodii ay holcayda oo qayliyaay waxaad arkay qof afkiisii holcaa oo qayliya oo wuxuu ku qayliyaa aada adiga sawiri karin oo qaab maba la sawiri karaba maxay dhahayn qofku markuu yiraahdo afkiisii holcaa ka baxa calooshiisii holcaa ka baxa waa shalaynayeen shalaytadaydii ay lahaayeen yaa shalaynay waxa shalaynay dadka Muuse Biixi iyo kooxdiisa isaaqa oo la socota oo barnaamijka la wadatay oo dagaalka la waday waa shalaynay maxay halaaga noogu horseeday lahaayeen ayagoo naarti ku socda ayagoo mataqaana naaru jahannaba mid ugu dareed ku socda oo hol ahayd qaacays ma la eegi karo adduunyada wax laga sheegi kara ma argagaxan dareemay waa bedelmay aniga dhamaa si kala noqday xaaladaydii oo dhan meel falxun ay tagtay meel falxun ana ku sugan aan soo kac waxaan u fahmay marka Muuse Biixi iyo dadkan la cadaabayo dhiiga muslimka oo ay banaysteen oo dadka masaakiimada oo 24 saac dhiigooda la daadinayo yaa imay tahay waxa inqaabtaan ilaahay ula doortay cadaabta imay saas tahay ayaan anigu u gartay war hal la daayo war Muuse Biixi oo dhiiga muslimka daa war ilaahay ka baq war isaaqow joog war muslimiinta iska daaya war birmageydada iska daaya war ilmaha daaya war ilaahay ka cabsada dagaalkan aad wadaan joojiya waa mid naar kugu sugantaa naaraan kugu sugan qof islaam in dhiigiisa qof oo banaysto hada ilaahay baba raalli kama ilaahay raalli kama maxaad marka maanta warbaahinta soo fariisatay waxaan soo fariistay in aan u sheego dadkaas dhibkii aan arkay wixii aan la soo kulmay dhibaatadaas oo dhan inaan uga sheekeeyo inaan hore uga sheekeeyo inaan gadaal uga sheekeeyo waa markii iigu horreeyay oo ku riyoodo Muuse Biixi iyo koox isaaqa oo wato oo aan arko ayagoo cadaabti lagu guraa subhanallah qaabka marka dadkaas loo cadaabayo waxa kamid ah oo anigu aan arko aan ku riyooday waxa kamid ah ayagoo mataqaana gaari banjara oo la riixayo meel holac lagu riixaa oo aadaara dadka aadaara korkiis meel holacana lagu sii riixaa lagu guraa qof ku dhagan yahay hayeen dadkaas marka waa kooxda Muuse Biixi iyo dadka oo wato oo isaaqa waa may maqlaysaan fiiriya Soomaaliya fiirsha u sheel gareeya muuqaalkan isaaqa dagaalka ku jira oo dhiiga muslimka banaystay inay saacad walba daadiyaan soo nasteexa ugu noqdo iyo naruuro guriyahana ugu galiya daaqadaha uga dhiiba meel walba ka galsh kii suulu ku jira u galsh